السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinkugu talagalnay maanta oo isniina taariikhduna ay tahay 6 November sanadka 2023. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay barnaamijyada maanta oo isniina aan idinkugu talagalay. haddaba barnaamijkeena waxaanu kaga hadli doonaa dhowr qodob oo muhiim ah. safarkii uu ku tagay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antonio Blinken caasimadda waddanka Turkiga ee Ankara muxuu halkaa kala kulmay? Erdogan muxuu ku sameeyay? dadweynaha magaalada Ankara waxa ay ku sameeyeen oo ilaa hadda lagu maadsanayo maxay tahay? haddaba Blinken oo dharbaaxyo xun kala kulmay sida la leeyahay safarkii uu ku tagay magaalada Ankara gelinkii dambe ee shalay iyadoo maantana uu isaga ambabaxay magaaladaas. haddaba sheekooyin cajiiba oo ku saabsan sida ay u galeen Turkida wasiirka arrimaha dibadda ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa dagaalo culus oo hadda ka soconaya magaalada Gaza. durbaba kooxda Kataibul Qassam oo sheegtay inay gubtay mid ka mid ah baabuurta gaashaaman ee la yiraahdo Shabeelka, kaasoo la sheegay in uu ku fadhiyo qiimo ahaan $3 milyan. haddaba ujeedada dagaalka maanta oo lagu tilmaamay inuu yahay Israa'iil oo doonaysa inay maanta qabsato oo ay gaarto guriga uu leeyahay hogaamiyaha kooxda Hamas Ismaaciil Haniya si ay halkaa sawirro isaga soo qaadaan. haddaba hawshaas iyadana war baan idinkaga hayaa. waxaa sidoo kale aan idiin hayaa boqorka Urdun oo sheegay in xalay saqdi dhexe ciidamadiisa cirka ay markaa dawo gaarsiiyeen cisbitaal ku yaala Gaza, laakiin afayeenka militariga Israa'iil ayaa sheekadiisa ka daba yimid. haddaba sida ay wax u dhaceen iyo wararkii ugu dambeeyay iyo khariidada halka dagaalka uu maanta ka socdo oo Jazeera ay noo diyaarisay ayaanu qaybta dambe ee barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. kula wanaagsan khiyaartana daawanaysa meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii ugu horeeyay maanta oo isniina innagoo idinkugu hayna barnaamijka maanta qodobo aad muhiim u ah. balse qodobka ugu horeeya marka aan barnaamijka ku bilaabo, dad badan ayaa waxay na soo weydiinayeen maalmahan arrin ku saabsan arrintii korontadii iyo isgaarsiintii laga jaray magaalada Gaza halkee ku dambeysay, xaalkeedu waa sidee? ninkii yiri waxaan geynayaa koronto baalkii internet iyo isgaarsiin baan geynayaa dhahay, isaguna xaalkiisa halkee buu ku dambeeyay? haddaba wararkaas waxaa la leeyahay weli ma jiro internet ka baxsan kii ay isticmaali jireen reer Gaza, kaas baa marna go'a marna soo laabta. haddaba waxaa warbixin ka qortay wakaalada wararka ee Anadolu maanta waxay leedahay si tartiib ah ayaa waxaa u soo noqday adeega isgaarsiinta iyo internetka ee magaalada Gaza. haddaba markii shalay uu haddana mar kale go'ay Axadii oo ahayd markii saddexaad ee uu internetku ka go'o iyo isgaarsiinta magaalada Gaza, ayaa waxaa la sheegayaa in hadda si tartiib ah hawsha ay u bilaabatay. shirkadda isgaarsiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ay hadda ku dadaali doonto sidii ay markaa u gaarsiin lahayd adeegaas guud ahaan meelaha kala duwan ee magaalada Gaza. waa tahay marka weli Israa'iil ayaa kontaroosha isgaarsiinta iyo telefoonka, markay rabto way sii deysaa, markay rabtona way ka xirtaa. marka shirkad Falastiin leedahay ayaa jirta oo isgaarsiina, taasaa marka marna way deysaa marna joojiyaan lahaa way joojiyaan. markii saddexaad ayaa Axadii shalay la jaray tiri
maanta haddana si tartiibaa loo daayay. marka waxay codsatay maamulka magaalada Gaza ee Xamaas waxay ka codsadeen masaarida shirkadahooda isgaarsiinta, bilaa calaykum isgaarsiinta xataa na siiya dheh oo nala ku gumaysanayo iyo internetka waxaasaan adduunka ula socon. marka masaariduna shirkadahooda kama aysan soo jawaabin. marka waxaan leeyahay way siin karaan masaarida, way awoodi karaan maadaama ay xuduud leeyihiin Gaza, way gaarsiin karaan shirkadaha masaarida isgaarsiinta. haddana marka arrintaa ma dhicin. marka warbixinta kooban ayaa waxaan ku bilaabay barnaamijkayga. qodobka labaad aan u galayaa marka waa qodobka ugu xiisaha badan barnaamijka. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka Antony Blinken ayaa booqasho wuxuu jimcihii ka bilaabay lasoo dhaafay Israa'iil uu kasoo bilaabay, kadibna Urdun uu tegay. wasiirada arrimaha dibadda 5 dal oo Carbeed uu lasoo kulmay oo ay ku jiraan 3 khaliijka ah sida Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Urdun iyo Masar oo iyaguna ku jiray 5 dawladood la kulmay. kadibna booqasho aan hore loo sii sheegin ayuu magaalada Ramallah wuxuu kula kulmay madaxweynaha Falastiiniyiinta. marka madaxweynaha Falastiiniyiinta markii uu la kulmay warar kala duwan soo baxay la leeyahay warbaahinta Mareykanka durbaba waxay bilaabeen Maxamuud Cabbaas wuxuu ogolaaday Xamaas haddii laga saaro meesha la cuno oo Xamaas baxdo in maamulkiisa uu maamulo magaalada Gaza. marka taas marka waxay ku abuuraysaa tashwiish Falastiiniyiinta dhexdooda. markii hore waxay ku heshiiyeen kooxaha Falastiiniyiinta Xamaasna Gaza inay maamusho, nimankan maamulka isku sheegayo Falastiiniyiintana ay daanta galbeed iyo wixii ay meeshaas haystaan, qolo walba meesheedii haysato. saasaa lagu heshiiyey. hadda marka waxaa loo soo bandhigaa layidhi Maxamuud Cabbaas, haye nimankan waa culaynaa, waa ka saaraynaa Gaza, adiga diyaar ma tahay, meeshii ma qabanaysaa? marka wakaalada wararka ee Faransiiska waxay leedahay Maxamuud Cabbaas wuxuu yidhi may, arrintan heshiis siyaasadeed lagu kala joogaa, heshiis siyaasadeed aan ku tagi doonaa oo Xamaas. marka nimankan marka waxay ka shaqaynayaan sidii loo tusi lahaa adduunka war in la qaata lama raba Gaza. halkan marka ninkaana la keenayaa. ninkan markii la keeno marka dadka waxay leeyihiin Falastiiniyiinta ay arrintan wax ka odorosa qadiyadii halkaa bay khalaas ku noqonaysaa, sababtoo ah nimankan waxay ka baqayaan nimankan xabadda kusoo ridaya ee halkan jooga ee khatarta geliyay. marka Maxamuud Cabbaaska meesha uu joogo hadda daanta galbeed la leeyahay inay mar walba inta soo galaan waxay rabaan inta ka qabsadaan iska baxaan. marka saasoo kale rabaan ay leeyahay inay Gaza ka sameeyaan, laakiin Xamaas ayaan arrintaa ogolaan doonin ayay dadka wax falanqay leeyihiin. marka waa ka soconaynaa. marka ninkii Antony Blinken ahaa wuu soo baxay. marka wuxuu soo aaday shalay gelinkii dambe Ankara soo aaday. Ankara marka waxaa la yidhi ninkii istiqbaal fiican kama uusan kulmin, macnaha soo dhaweyn wanaagsan kalama kulmin. mansab hoose haysta iyo waxaasa soo dhaweeyey. marka sheekada marka ugu qosolka badan waxay tahay oo aad baraha bulshada qabsatay, oo baraha bulshada Telegramka iyo meelahaasoo dhan la wado waxay tahay nimanka Turkida. marka waa niman imtixaana. shacabka Turkida maalmahan oo dhan mudaharaadyo wadeen, waxay la safan yihiin Gaza. marka waxay sameeyeen ninkan markuu soo dego wadada maraysa oo tagaysa wasaaradda arrimaha dibadda way garanayaan meesha la marsiinayo. markuu ninka airportka ka yimaado wasaaradda arrimaha dibadda u socdo wadadii marka meel korkeeda oo markuu soo socdo baabuurka wadada waxaa jira korkeeda buundo yaroo laga gudbaa jirta oo kor. markaas sawirka waxay ugu dhijiyeen Abu Ubayda, sawirkiisa ugu dhijiyeen. macnaha baabuurta markay soo socoto qofka gaariga saaran markiiba wadada wuxuu ku arkayaa sawirka Abu Ubayda. dadkii ugu dhijiyay meesha. tuso marka sawirka laga qaaday sheekadan oo aad baraha bulshada ula socota oo la leeyahay wasiirka arrimaha dibadda aad buu uga carooday macnaha waxa meesha ka dhacay iyo xaaladu sida ay tahay. waa tahay marka
dadkii carabta marka waxay isticmaalayaan baraha bulshada ku isticmaalayaan sawirkan waxay leeyihiin turkidu waxa ay ku dhajiyeen suuradda ama sawirka Abu Ubayda darbiyada markii ay marayeen halkaas kolonyadii waday wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka haddaba sawirka marka halka ku dhagan meesha lagu dhajiyay marka waa sawirkan marka waxay leeyihiin marka sawirka waa kaas sawirka halkaas ku dhagan marka ninkii waxa la yiri isaga dhan halkaas aad buu u carooday la yiri waa tahay marka uu soo gudbay wuxuu yimid wasaaradda arrimaha dibadda waa tahay wasaaradda arrimaha dibadda markii uu soo galay waxa la leeyahay sida ay qortay majalada la yiraahdo al-Qudus al-Arabi ee xarunteedu tahay magaalada London waxay leedahay mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wuxuu sheegay kulanka dhex maray Blinken iyo dhigiisa wadanka Turkiga waa Hakan Fidan in uu qaatay 2 saacadood iyo bar inuu qaatay jilbaha la isku aastay waatay ka caraysnaayeen Turkida waxa ay qabanayaan nimankan Israa'iiliyiinta Erdogan waa tii uu ka hadlay Hamas argagixisa ma waa urur muxuu ahaa u jihaadaya sidii wadankiisa uu xoreysan lahaa ayuu yiri waxyaabo badan ninkan Netanyahu la leeyahay in lala hadlaba ma ahan u dhahay waxyaabo badan uu ka hadlay Erdogan oo carada waa inay joojiyaan xasuuq ku tilmaamay waxa kan meesha ka dhacaya wax la aqbali karo inaysan ahayn wuxuu sidoo kale Erdogan uu sidoo kale toos u weeraray dawladaha gadaal ka taagan u dhahay xasuuqan iyagana waa lagu xisaabtami doonaa khudbadihii marka Erdogan wuxuu toos ugu weerarayay Mareykanka iyo Israa'iil haddaba meeshii marka la isku helay ninkii Blinken ahaa 2 saac iyo bar asaga iyo Hakan Fidan halkaas la isku helay waxa ay wadaan wax ka jira ma jiraan waa in degdeg dagaalka loo joojiyaa waxa ay meeshii la isku helay ninkii marka wuxuu dhahay Erdogan inaan isna arkaan rabaa haddaba Al Jazeera ayaa marka warbixin ka qortay asaga iyo Erdogan inay isheleen iyo in kale waxa leeyahay Al Jazeera waxa leedahay booqashada Blinken uu ku tagay Ankara kuma ba jirtaa la dhahay saaxiib inaad la kulanto madaxweynaha Turkiga wuxuu ku maqan yahay safar dhinaca waqooyi bari wadanka Turkiga wuxuuna sidoo kale Erdogan horey u sii sheegayba ziyaarada ama booqashada uu ku imaanayo ninkan maalinta Isniinta ah in marka uu isagu qaadacay haloo sheego yiri aniga ninkaas ma arkayo mana la kulmaayo meeshuu doonaha aado sheekadaas marka iyaduna way uga sii dartay intuu horta marka hore waxa lagu bilaabay markuu soo degay baa niman hoose oo maamulka Ankara gudoomiye ku xigeenka iyo waxa kan iyo soo dhaweeyay wuu iska dulqaatay wasiirkii xafiiskiisa kugu sugaalay intuu wadada soo socday Abu Ubayda ugu dhijiyeen xafiiskii wasaaradda arrimaha dibadda iyo Hakan Fidan dhagaha iska garaaceen Erdogan ma kula kulmaayay odagii marka aad isagoo u caraysan sawirkiisa waa kana hadda goordhow ayuu ka dhoofay magaalada Ankara shir jaraa'id uu qabtay wuxuuna yiri waxaan u sii socdaa Japan halkaas oo kulan aanu ku leenahay madaxda wadamada la yiraahdo G7 oo arrimahan soo kordhay iyo waxa kala hadli doono kadibna waxaan u sii gudbi doonaa dalal kale oo ku yaala Asia India iyo ay kamid yihiin marka waxa la weydiiyay maxaa kala kulantay Turkida waxaan aad uga wada hadalnoo dhahay xaaladda sidii loo dejin lahaa sidii arinta wax badan looga qaban lahaa waxyaabo badan baanu maartay isla fiirinay uu ka gaagaabsaday kadibna wuu dhoofay ninkii odaga ahaa waaye marka hawsha iyaduna waxay ka mid ahayd warbixinada cajiibka ah ee hadda aadka loo hadalhayo booqashadii Blinken uu ku tagay Ankara oo maartay arrimo la yaab leh uu kala kulmay dagaal culus oo hadda socda halka la kala joogo iyo meesha ay xabadu ka dhacayso waa idin soo wadaa balse waxaan ka hormarinayaa boqorka wadanka Urdun ayaa wuxuu sheegay xalay saqdii dhexe ciidamadiisa cirka
in ay dawo ku daadiyeen cisbitaal ay maamusho urdun oo ku yaala magaalada gaza. warkaas markuu soo baxay wuxuu noqday war la yaab leh. sidee suuragal ku noqotay? ciidamada urdun sidee suuragal ugu noqotay iyadoo diyaaradahan hawada ka buuxaan oo duqaymo lagu wado magaalada in diyaarad urdun leedahay ay tagto ay wax ka dejiso? nimankan israa'iiliyiintana xataa waxay kuwii masar ka soo galayay ayay inta dib u baaraan ayay dib baabuurta u saarayeen gargaarkay geynayeen. marka sidee ku ogolaanayaan diyaarad hawada inta soo gasho wax daadisa? sidee ku ogolaan karaan? dadku xalay way ka doodayeen runtii. marka waxay lahaayeen arrintaas suuragal ma ah. boqorku waxay ahayd inuu caddeeyo cidda kala shaqaysay haddiiba ay jirtay lahaayeen, shakiya gelinaayeen. haddaba marka hore aan idin tuso boqorka bartiisa twitterka ama x ayuu wuxuu soo dhigay warbixintan iyo sawiro muujinaya gargaar markaa la qaadayo oo la geynayo sida uu yiri gaza. wuxuu sheegay ciidamadeena cirka militariga xalay saqdii dhexe waxa ay sameeyeen gargaar ayay waxay dejiyeen oo dawo ah oo degdeg ah cisbitaal ku yaala magaalada gaza oo la yiraahdo cisbitaalka urdun. waxaana uu sheegay in ay tahay tani waajibkeena inaynu gargaar gaarsiino dadka dhaawacan ee dhibaataysan ee cisbitaalada ku jira, kuwaasoo la ildaran sida uu yiri dhibaatana ay kasoo gaartay duqaymaha lagu hayo magaalada gaza iyo dagaalka ka socda. wuxuuna sheegay urdun inay sii ahaan doonto taageeradaas ay sii wadi doonto walaalahooda reer falastiin. waaya marka qof kasta wuu isweydiinayaa xalay duqaymo culus ha dhacay, diyaaradaha israa'iil ma ka faaruqaan? way ka shakisan yihiin. cid halkaa soo aado oo caraba dhan ay ka shakisan yihiin. marka sidee boqorku waxaan u sameeyaa lalahaa? boqorka hadda wuxuu ku sugan yahay sida la leeyahay magaalada Brussels ee wadanka Belgium si uu madaxda midowga Yurub ugala hadlo sidii xabad joojin loogu heli lahaa dadka Gaza gargaarna loo gaarsiin lahaa. marka waxaa la leeyahay marka arrintan sidii looga hadlayay ayaa waxaa la weydiiyey goor dhaweyd afhayeenka militariga ee Israa'iil. waxaa la yiri sheekada ka waran saaxiib. nimankan warbaahinta Israa'iil ayaa weydiiyey, waxay yiraahdeen ninkan wuxuu sheegay maxaa ka jira? adika hawada annaga hayna, dhinacyada annaga hayna, magaalada waa go'doominay, waxaynaan ogeyn ma geli karaan baa lahaydeena ka waran. haddaba aan idin tuso telefishinka la yiraahdo al-Hurra ee laga leeyahay wadanka Mareykanka ayaa wuxuu sheegayaa, wuxuu cadeeyay afhayeenka militariga ciidamada Israa'iil maanta oo Isniin ah in gargaarka la sheegay in lagu dejiyay oo Urdun ay dejisay marinka Gaza uu yahay mid iyaga ay ka shaqeeyeen Israa'iil ahaan. waxaana uu sheegay wuxuuna u sheegay arrintan channelka la yiraahdo al-Hurra oo Mareykanku leeyahay. afhayeenka Israa'iil wuxuu sheegay diyaaradda taageersan ama ay leeyihiin ciidamada cirka Urdun waxa ay ku dejisay uu yiri gargaar oo dawo ah iyo alaabooyin kale oo cisbitaalku u baahnaa oo cunooyin iyo ay ku jiraan cisbitaalka la yiraahdo cisbitaalka Urdun ee magaalada Gaza. dhammaanteedna waa la socon dhahay waxa meesha la geeyay waxa dhan diyaaradda waxaynan anagu socon ma samay karaan uu yiri carabta. waa kaas marka hawshaas iyaduna halkaasay martay oo ay ku dhamaatay. marka waxaan galaynaa qaybta ugu dambaysa. dagaal culus ay sheegay hadda ka socda Gaza sida Jazeera wariyaasheedu ay soo tubinayaan. mar walba ay leeyihiin dagaal culus oo qaraar ayaa socda maanta dee markuu dagaal saar oo kale u dhaco caawa waxaan sugaynaa Abu Ubayda wuxuu soo saaro ayaan bal ka hadli doonaa. haddaba dagaalka maanta waxa uu ka socdaa magaalada Gaza qaybo kala duwan iyadoo qariidada oo halka xabadu ka socoto Jazeera ay noo soo bandhigi doonto ayaan maaragtay idiin soo gudbin doonaa. laakiin marka ugu horeysa waxaan u gudbayaa ujeedada dagaalkan muxuu yahay. dagaalkan hadda socda Israa'iil halka ay target gareynayso muxuu yahay. haddaba ciidamada Israa'iil weerar culus ayay qaadeen. Al Jazeera waxa leedahay khabiir military
ayaa wuxuu sheegay in Israa'iil ay markaa duqaymo culus ku wado iyo weerar dhulka ah si ay u gaarto ayuu yiri guriga Haniya ama Ismaaciil Haniya gurigiisa si ay isaga qaadaan halkaas marka ay tagaan sawirro ay ku muujinayaan shacabkooda u sheegayaan in guulo ay gaareen dagaalka. waxaa ka fahmeynaa Israa'iil wax kaloo guula ma hayso. godadkii aan galnay, hubkaasaan nimankii ka qabanay, nimankii waa kuwan aan soo qabanay ma hayso. nimanka xabadda ku ridaaya ma hayso. marka waxay leeyihiin si shacabkii oo kacsan ay niyadda ugu dhisaan, waxay maanta taarget garaynayaan inay gaaraan guriga uu leeyahay Ismaaciil Haniya. Ismaaciil Haniya waxa waaye ninka hogaamiya ama madaxda u ah ururka Xamaas. ninkaas wuxuu fadhiyaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar. waa ninka TV-yada ka soo hadla, waa ninka khudbadaha jeediya, waa ninka maktab oo siyaasiga madaxda u ah. Ismaaciil Haniya leeyahay. marka gurigiisa inay inta tagaan ayuu leeyahay khabiirka Aljazeera leedahay sawirro inay ku soo galaan ay rabaan ay yiraahdaan waa kaas gurigii Ismaaciil Haniya ayaa joognaa. marka meeshaasay ka maraysaa xaalku halkaasuu maraa uu leeyahay ninka khabiirka ah ee Aljazeera ay soo xiganayso. dhanka kale war horudhac ah ayay soo saareen kooxda la yiraahdo Kataa'ibul Qassam. Kataa'ibul Qassam waxay tiri mudaracada la yiraahdo An-Nimr ama gaariga gaashaaman ee shabeelka ah oo lacagtiisu Israa'iil ay ku qarash garaysay midkiiba 3 milyan oo dollar ayaanu gubnay oo dhahay waxaan u isticmaalnay gantaalka la yiraahdo Cornet. sidaas waxaa tiri Al-Qassam. waa la isku kilkilayaa baash xabadiya meel walba nagtaa la isku hayaa. hadhow kolley waa la kala war qaadan doonaa. barnaamijkan labaad markaan kusoo laabto labada dhinacba way hadli doonaan. maanta oo kale Abu Ubayda waa la sugayaa sida aan qiyaasayo. dagaaladii horesaan uga baranay markii dagaal culus u dhaco ayuu yimaadaa. marka Aljazeera marka waxay leedahay guriga Ismaaciil Haniya ma la gaaray, ma la qabsaday, maaratay meelihii ay rabeen ma qabsadeen. warar warbaahinta Israa'iil laga baahiyay waxay sheegayaan in magaalada la kala jaray sida militariga Israa'iil u sheegay. hamigeeni waa gaarneen dheheen oo ah magaalada inaan januub iyo shimaal ama koonfur iyo waqooyi u kala qaybino waa gaarnay. laakiin Jazeera waxay leedahay weli lama gaarin. warkaas fara noo taaganay leeyihiin. warka oo la faafinayo oo miidiyaha Israa'iil iyo laga hadlayo weli waaye leeyihiin. arrintaa ma dhicin. xogta aan ka hayno magaalada aan idin tuso marka qariidada Jazeera ay soo bandhigayso maanta halka xilligan dagaalku uu ka soconayo waa tahay. Jazeera marka waxay sawiraysaa goobta dagaalka ba'an oo ka socdo. sida u jeedaan isla eriyadii shalay ayuu dagaalku ka socdaa. Al-Karama iyo Mukhayam Ashati, Al-Mina, Tal al-Hawa, الزيتون eriyadaas calaamada lagu wareejiyay ayaa dagaal culus uu ka socdaa. marka laba jiho ayayna ka weerarayaan. dhankaasna way ka yimaadeen, dhankaana way ka galeen. marka nimankan marka iyaguna Xamaas waxay sameynayaan hoobiye iyo wax walbay ridayaan. iyaguna meelaha askartan joogaan ayay ku garaacayaan. marka qariidada marka waxay leedahay Jazeera halkaasay bahashu ka socotaa. mar kale ayayna tusinaysaa Jazeera qariidada iyadoo calaamad buluuga la mariyay oo eriyada dagaalka uu ka socdo. waa isla eriyadii Al-Karama. Al-Karama waa wareegaas intaas wareegsan ayaa bahashu ay dhindhinka ka tahay. marka guriga Ismaaciil Haniyana waxa uu ku yaalaa la leeyahay Al-Karama meeshaas dhibicda guduudka ah oo dhexe eriyadaas ayaa guriga uu ku yaalaa. marka nimankan marka maanta shaqada ay u soo baxeen waxa waa la leeyahay sida khabiirka uu hore u sheegay inay guriga isku soo sawiraan Ismaaciil Haniya. waaya halkaas marka waa la kala joogaa. inkastoo Israa'iil ay leedahay magaalada waa la gaaray waqtigii aan kala goyn lahayn waa kala goyn.
aljazeerana waxay leedahay weli lama kala goyne meeshii dhexe aniga aan barmuudo u bixiyay godkii meeshiyaa laysku hayaa ishaan ku hayn doonaa wixii soo kordha dagaalkan socda ayaan warkiisa idin keenayaa haddii allah awoodili ka raali noqdo waxaana rajeynaynaa inay warar soo saari doonaan dhinacyada labada afhayeen inay ka hadli doonaan barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo isniina inta ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo nadaaraha ayaa idinla socodsiinayay barnaamijka aad baa ugu mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka dhinaca fariimaha iyo liked haddaad ku cusub tahay barnaamijka subscribe saar youtube-ka haddaad ku cusub tahay facebookana follow gare intaan mar kale kulmayno nabadgelyo